saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaan ka hadlaynaa jimicsiga loo yaqaan sit up. Sit up waa maxay? Waxaan kaloo ka hadlaynaa faa'iidooyinka jimicsigani sit up uu leeyahay. Sidoo kale qaybta saddexaad waxaan ku soo qaadan doonaa sida saxda ah ee loo sameeyo jimicsigan loo yaqaano sit up. Sit up iyo talooyin muhiim ah oo u khaas ah dadka marka ay sameynayaan jimicsigan sit up. noocyada kale ee sit up-ka loo sameeyo ayaan sidoo kale ka hadli doonaa ugu dambeyn. Marka waxaan ku bilaabaynaa jimicsigan sit up. Sit up waa mid ka mid ah jimicsiyada ugu caansan ee lagu xoojiyo murqaha caloosha abs. Haddii murqaha caloosha aad rabto inaad xoojiso, waxaad u baahan tahay in aad barato sameynta jimicsigan loo yaqaano sit up. Sidoo kale wuxuu si gaar ah jimicsigan sit up u beegsadaa murqaha caloosha, gaar ahaan qaybaha hore ee caloosha loo yaqaano rectus abdominis iyo dhinacyada oblique. macnaha haddii aad rabto qaybta caloosha, dad waxaa jira calooshoodu qaybta hore ay ka buuran tahay laakiin dhinacyada ka siman, waa anfacayaa jimicsigan. sidoo kale haddii aad dhinacyada xeer badan aad ku leedahana oblique ayaa la dhahaa, jimicsigani waa ku anfacayaa. marka labadaasba muhiim ayuu u yahay. jimicsigan labadaasba wuu beegsadaa, marka waa muhiim. jimicsigani wuxuu ka caawiyaa qofka inuu dhiso calooshiisa, inay calooshiisu noqoto calool adag. macnaha caloosha jilcan ee buluq ah looma baahna, waa uu la dagaalamaya. sidoo kale jimicsigani wuxuu hoos u dhigaa baruurta caloosha. inta badan dadka xeerta caloosha ku leh aad ayuu u anfacayaa. wuxuuna sidoo kale jimicsigani sit up xoojiyaa ama hagaajiyaa xoogga iyo xasiloonida xudunta jirka, core strength waxa la dhaho. macnaha jimicsigani xasiloonida jirkaaga oo dhan ayuu sameynayaa, marka sameyntiisa waa muhiim. marka intaas waxaan kaga hadlaynay waxa uu yahay sit up. faa'iidooyinkiisa waa ay fara badan yihiin, ilaa laakiin 6 ayaan kusoo koobaynaa. xoojinta murqaha caloosha. wuxuu si toos ah u beegsadaa murqaha caloosha, taasoo ka dhigaysa jimicsigani mid adag oo qaabaysan. macnaha caloosha markaad jimicsigan samayso, calooshaadu waxay noqonaysaa mid adag oo qaabaysan oo shapekeedii saxda ahayd ayaa ku soo laabanaysaa. 2 waa dhisidda core strength, xoogga xudunta. murqaha caloosha iyo dhabarka hoose waxay noqdaan kuwo xoog leh, taasoo hagaajinaysa xasiloonida jirka. macnaha jimicsigan caloosha kaliya maahan, dhabarkana wuu u fiican yahay. dhabarkii iyo calooshii labadiiba wuu xoojinayaa. xasiloonida jirka marka dib u soo laabanayso, core strength. qaybta saddexaad waa hagaajinta jilicsanaanta jirka. jimicsigani wuxuu ka caawinayaa in dhabarkaaga uu noqdo mid dabacsan. dadka dhabarka xanuuna, dhabarka adag, dhabarka aan laabi karin, miskaha ay xanuunaan, jimicsigani flexibility wax la dhaho ayuu u sameynayaa, hagaajinta jilicsanaanta. dhabarkaaga wuxuu ka dhigayaa mid dhinac walba loo rogi karo. qodobka afraadna waa khatarta yareynta dhaawacyada dhabarka. haddii inta badan dadka dhabarka ka dhaawacma waa dadka inta badan aan jimicsigan sameyn. marka core ama xudunta jirka uu xoog yeesho, dhabarka markuu xoog yeesho, waxaa yaraanaya culayska ku imaanaya dhabarka. marka haddii aad ka baqayso wax la yiraahdo dhaawacyada dhabarka inay ku gaaraan, jimicsigan muhiim ayuu ku yahay. 5 gubista kalooriyada. haddii jimicsigani lagu daro cunto caafimaad leh iyo jimicsiyo kale iyo socod iyo dabaal iyo waxyaabahaas oo dhan, haddii lagu daro sokortan in la dhimo lagu daro, waxay ka caawinaysaa in xeerta caloosha ama miisaankaagu inuu si fudud u dhaco. qaybta ugu dambeysa oo ah qaybta 6 waa dhaqdhaqaaqa jirka oo wanaagsanaada. jimicsigani wuxuu hagaajinayaa awoodda qofka ee la xiriirta isku dheelitirka jirka iyo xasiloonida. haddii socodkaagu xataa gabaabsi ahaa, socod fiican ayaa yeelanaysaa, dhaqdhaqaaqaaga fiicnaanaya, adigoo dhan baa soo wanaagsanaanaya. marka intaas waxaan ku soo koobaynaa faa'iidooyinkiisa. sidee loo sameeyaa? waxaa fiican marka hore inaad dhulka seexato, lugahaaga inaad jilciso oo lugaha soo laabto, oo cagaha dhulka aadan saarin. marka waa fariisanaysaa, waa seexanay,
adigoo dhabarkiina ka wada ilaalinaya dhulka qayb ka mid ah, lugihiina waa soo laabaysaa. Gacmaha ayaad dhulka dhigan kartaa sidoo kale. Gacmaha dhagaha gadaashooda dhiganaysaa, xabadka dushiisana waad ilaalinaysaa, qoortaad ku ilaalinaysaa. Sida hadda ninkan ka muuqata sawirka ayaaba noo faahfaahinaya. Caloosha ayaad cadaadinaysaa oo dhanka jilbihii ayaad ku soo cadaadinaysaa. Jirka qaybtiisa sare ayaad kor u soo qaadaysaa, sida haddaba ka muuqata sawirka ayaad kor u soo qaadaysaa. Kadibna waxaad dib ugu laabanaysaa dhulka. Sidaasaad marka maanta oo dhan samaynaysaa. Marka waxaa fiican 10 ilaa 20 jeer inta aad awooddo adiga inaad samayso, laakiin 10 ilaa 20 jeer maalinkii inaad samayso ayaa fiican. Talooyinka marka maxay yihiin? Talooyinka muhiimka waxaa waaye dadka khaladaadka ay sameeyaan, dadka jimicsigan sit up ka sameeyo inta badan waxay isticmaalaan qoorta inay ku soo istaagaan. Lama rabo. Waxaa la rabaa markaad soo istaagayso inaad caloosha isticmaasho, sababtoo meesha aad la dagaalamayso waa xeerta caloosha. Qoorta ha jabin, hana cadaadin. Gacmahana ha noqdaan kuwo lagu xoojinayo. macnaha qoorta waxaad u samaynaysaa bis xoojin ayaad gacmaha u samaynaysaa. Haddii aad bilow tahay waxaa fiican inaad tiro yar inaad samayso 3 4 5 inta aad awooddo. Sidoo kale gogasha aad isticmaalayso waxaa fiican inay noqoto gogol jilicsan oo dhabarka cadaadis badan aan saaraynin. Waxaan rajaynayaa muuqaalkani inaad wax badan ka faa'iiday. Waxaa jira marka noocyo kale oo isla sit up kan ah: basic sit up, weighted sit up, bicycle sit up, V up. waxaasoo dhan waan ka soo hadli doonaa. Like share muuqaalka.